Bismillahi Rahmaani Rahiim. Qaybtan waa qaybtii sagaalaad oo crypto serieskii aan soo wadnay. Waxaan rabaa qaybtan sagaalaad inaan uga hadlo waxyaabahan loo yaqaano cryptocurrency exchanges ama exchange-yaasha lagu kala gato lacagaha cryptocurrencies-ka. Marka cryptocurrency exchange-yada waa platform ku iibsan kartid isla markaa isaga iibin kartid ama ku trade gareyn kartid cryptocurrencies-ka aad haysatid ama aad rabtid inaad soo gadatid. Kaba soo qaadba waa qaar waa lacago oo US dollar oo kala bangi transfer ugu sameynaysaa sida Binance oo kale. Waxaa u diri kartaa xataa USDT lacagihii stable coins oo aan ka soo hadalnay aad u diri kartaa. Ayaga marka ku trade gareyn kartaa. Marka waa exchange waa kuwaas laba nooc oo marka cryptocurrency exchange ay jira. Mid waxa la yiraahdaa centralized exchange ama CEX CEX loo yaqaano CEX oo central exchange. Kuwo kale waxaa jira la yiraahdaa decentralized exchange waxaan maleynaa horena waa uga soo sheekay marka DeFi ka hadlay. Centralized exchange-ga waa sida Binance oo kale, Kraken, Coinbase, Gate.io waxa maamusha shirkad ama shakhsiyaad maamula. Ayaga marka lacagta gashanaysaa marka lacagta gashatid suuqii ayaga haya order book-gii hayaan halkaas ka gadanaysaa cryptocurrency-ga aad rabtid. Kaba soo qaad waxaad rabtaa inaad gadatid Floki coin oo kale rabtaa Floki token oo kale rabtaa inaad gadatid. Binance oo kale daa USDT u diraysaa. USDT marka u deposit gareysid kadib Floki token-ka gadanaysaa. Marka kuwaas oo kale waa centralized exchange. Kuwa decentralized exchange-ga waa kuwa wallet-kaaga isticmaalaysaa uma baahnid inaad qof u dirtid. Uniswap oo la jiro oo Ethereum blockchain ku base gareysan. PancakeSwap la yiraahdo jirto oo ku base gareysan BNB Smart Chain. Solana idin naftirkeed way leedahay. Blockchain kala duwan leh. Marka decentralized exchange Allah marka ayada uma baahnid inaad qof u dirtid yani directly centralized ka galay Uniswap oo kale. Floki token rabtaan aad geysataa dooranaysaa USDT ama Ethereum ka rabtaan ku gadato kale qoraysaa automatically waa gadanaysaa marka adoonba u dirin. Marka labadooda mid walbana faa'iidana waa leedahay khasaarana waa leedahay. Marka hadda isbarbar dhigno kale for example control-ka markay timaado qolooyinka centralized exchange-ga shakhsiyaad maamula oo maaragtay ama dad shirkadaha maamula. Marka maamulkaas wuxuu keenayaa in ay lacagtaadii ka celin karaan, ka joojin karaan, order-ka ay dib u celin karaan, waxaas dhan ay sameyn karaan. Kuwan decentralized ama DEX la yiraahdo qof maamula ma laha waa peer to peer yani direct ya wixii gadaya wada tacaamulaysiin adinkoo is aqoonin. Marka qof maamuli kara ma laha qof dib u celin kara ma laha. Marka isticmaalka ay timaado iyo qaabka u kala fudud yihiin kuwa centralized-ka xoogaa more friendly la yiraahdaa oo xoogaa sahlan sida Binance oo kale maadaama ay rabaan dad badan inay yimaadaan oo ay ka helaan faa'iido trading-ka aad sameynaysid. Kuwa DEX la yiraahdo xoogaa waa more advanced waaye qofku wuxuu u baahan yahay inuu crypto aad u fahansan yahay wallet-kan uu aad u fahansan yahay ciladaha ay keeni karto waxaasna inuu fahansan yahay. Ayaga taas xoogaa little bit more complex waaye la yiraahdaa. Security markay timaado centralized exchange waxa la yiraahdaa high risk waaye oo waa la hacking gareyn karaa. Waa jirtaa mid la hacking gareeyay oo 850,000 oo Bitcoin laga qaatay Mt. Gox la jiray 2012 amaleynaa inay ahayd. Binance naftirkeed mar baa la hacking gareeyay oo lacag laga xaday. Kuwa lira Bitfinex kuwa lira exchange ayaga naftirkeed waa la hacking gareeyay. Marka ayaga hacking gareynkaas leedahay because waxay la mid tahay waa sida bangi oo kale. Bangigu dadka hadda wax dhaco kale Soomaaliga oo robberies-ka oo bangiyada dhaco kale sababtoo bangigu aadaan waxa way lacag way ogyihiin inay hadday tagaan lacag ay ku helayaan mugtay ka heli karaan. Markuu bangiga weerarayaan marka saas oo kale waaye qolada hackers oo kale waxay ogyihiin inay crypto ku jirto exchange-yada marka ay isku dayayaan inay hacking gareeyaan. Exchange-yada badan marka hawada ka baxay jira waxa taa la hacking gareeyay. Kuwan oo DEX-ga qofkii ma hacking gareey karo oo waxa waaye crypto-daada adaa wali haysta ilaa markaa suuqa ku jirtid maane. Marka ayaga xoogaa cilada ay leeyihiin waxa waaye suuqa markaas lacagta crypto-da aad dirayso kale in drainage lagu sameyn karo intaas suuqa ay ku jirto in lacagtii drainage lagu sameyn karo laga xadi karo. Taas oo kale way leedahay laakiin sida kuwan oo kale loo attacking gareeyo looma attacking gareey karo. Liquidity markay timaado liquidity waxa la yiraahdaa tokenada ay hayaan farbadnaandooda waxa la yiraahdaa badanaa kuwa centralka ayaa liquidity badan sababtoo ah waxa laga yaabaa inay hayaan billions oo token kala duwan oo dollar u dhigma inay hayaan marka ayaga more laga heli karaa wax aad inaad gadatid ka soo qaad badaa fiidina gadatid $10 milyan oo Ethereum waxa laga yaabaa inaad samarkii ka heshid Binance oo kala daadid laakiin kuwa kale waxa laga yaabaa inaad ka helin because qofka gadaayo waa inuu heshid marka lower liquidity alla liquidity dhankooda kuwaas marka ayaga badanaa kuwa DEX ku jira waa tokenada yararka hadda soo baxayo kala laga helaa badanaa
Uniswap-ka iyo laga helaa. Marka DEX screen wax la jiro oo tools oo aad ka fiirin kartid. Markay timaado degdegsiimada, kuwa centralka degdeg badanaa. Maadaama transactionki isla markii aad gadi karto orderka aad ujeedid hore ka gadi kartid, asaa degdeg badanaa la yiraahdaa. Kan decentralized-ka xoogaa waa degdegsiimadaas ma lahan maadaama wallet-kaaga inuu lacagta ka diro xagga geeyo waxyaabo badan oo xoogaa little complex uu yahay ma degdeg badna. Marka central exchange-ga waa sida Binance, Coinbase, Kraken. Decentralized exchange-ga waa sida maaragtay Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap kule waxaas oo dhan waaye kuwaas. Marka qaabka ay centralized exchange oo kala sida Binance oo kala qaabka u shaqeyso waxa waaye inuu qofku maaragtay for example uu sign up gareeyo account inuu ka samaysto. Account-ka markaa ka samaysto marka waxay kuleeyihiin verify garee. Waagi hore Binance verify ma lahayn jir laakiin muddooyinkii dambe verify ay sameeyeen. oo baasaboorka Kenya waxaasay kuleeyihiin. Wadamo badan oo dowladda Mareykanka cunaqabateyn saartay ma ogola. Laakiin decentralized-ka asaga ma u baahnid wallet-ka aad leedahay already ama trust wallet-ka aad ku samaysatay ama hardware wallet-ka aad ku samaysatay unbaa ku xiraysaa. Marka wax account uma baahnid. Marka qofkii tiidan oo kale in dowladda ogaadaan oo kale laayihiisa decentralized oo kale u isticmaali karaa. Centralized oo kale ka bacdi lacagta deposit ku sameynaya lacag cash ahaan ugu diri kartaa bank transfer ugu sameyn kartaa ama cryptocurrency sida USDT oo kale u diraysaa. Kadibna waxaa rabtaa gadanaya kaar xataa waa lagu gadan karaa marka qaarkood. Orderkii aan markaas bal iskareynaya yani waxaa jira wax la yiraahdo limit order wax loo ama market order. Limit order waxa waaye for example marka aad hadda kaba soo qaad waxaa rabtaa inaad gadato Bitcoin. Kaba soo qaad Bitcoin waa $90,000. Kaba soo qaad waxaa leedahay ani waxaan rabaa inaan Bitcoin ku gato $90,000 oo gaw ah. Ka badan mar inaan gato. Marka Bitcoin haddii 91,000 ay ahayd ama 92,000 uu iska sugayaa suuqa ilaa ay timaado 90,000 markaas uu ku gadayaa. Kaas marka waxaa la yiraahdaa limit order. Faa'iido uu leeyahay waxa waaye inuusan suuqa kula cararayn, uusan kula ordayn. Market order waxaa la lahaa midka kale jira waxaa market order asagana la yaqaano oo badanaa dadka isticmaalaan. Market order waxa waaye suuqa markaa soo istaagtay inaad tiraa aniga wixii rabo Bitcoin ka noqdo ani waa gadanaya. $100,000 haysaa waa gashanaya isla markii buy and leh wixii uu Bitcoin ha ii gado. Marka market order kaas la lahaa. Isaga faa'iido uu leeyahay waxa waaye degdeg suuqa haduu kor u socdo kale degdeg ku heshay. Laakiin khasaarada uu leeyahay waxa waaye waxaa laga yaabaa suuqa markaas aad gadanayso inuu 95,000 96,000 tagay oo aad gadato markaa gadato kadibna 92,000 inuu ku soo noqday. Marka xogaa jaa khasaara meeshaas ku jirta maadaama suuqa adiga orderkii aad daba ordaysaa. Marka dadka badanaa FOMO wax la yiraahdo ama fear of missing out market order ka yimaadaan ama dadka retail-ka badanaa cusub market-kaas ku dhufanaa. Qof mar rabi inuu ka fikiriyo limit-kan wuu iga tagayo buu leeyahay. Laakiin qofkii fahansan suuqa inuu marka hore aad soo noqonayo support and maaragtay resistance waxaas yaqaana meeshaas uu dhigaya wuu ku sugayaa. Marka limit order-ka saas oo kale ku fiican yahay kuwa centralized-ka waxaas la kuwan kala badanaa ma lahan waxaas. Exchange-ga marka asaa marka trade gareynta ku sameynaya central exchange oo kale system-kooda isku match gareynaya qofkii wax iibinaya qofkii iibsanaya marka order book isba bedelayo sidaad uga aragtaan oo kale halkaan oo kale arkaysaan order book-kaas marka yani mar walba isbedelayo adiga order-ka soo dhigtay uu ka mid noqonaya markii aad ka baxdina uu ka baxaya. Decentralized-ka kuwa smart contract-iga aan soo sheegnay ayaa handle gareynaya wax walba oo maaragtay oo match gareynaya dhammaan dadka. Central exchange marka ka bacdi markaa gadato waxaaga withdrawal ka sameyn kartaa crypto ahaan ula bixi kartaa. Halka decentralized isla markii aad gadato isla markii wallet-ka uu ku soo diraya isaga oo ilaa asaga kuma bahin marka hore mugta. Marka qaabka oo labadooda ay ku kala duwan yihiin intaas waaye. Kuwa ugu muhiimsan marka la yaqaano waa Binance-gaas iyo Coinbase-kaas oo kale oo centralized-ka iyo Kraken iyo Gate.io. Kuwan kalena waa Uniswap iyo Sushi iyo waxaas. Binance oo kale 2017 la sameeyay aad ay u weyn tahay waxaa laga yaabaa billion dollars maalintii inay volume-keeda tahay. Waxaa jirta Coinbase mid la yiraahdo mar hore la sameeyay oo Mareykanka 2012 more waxa waaye waxay dadka cusub oo kale Coinbase ka isticmaalaan Mareykanka iyo waxaas. Sababtaas ay keenaysa xataa Coinbase cryptada ay list gareyso inay aad qiimadeeda kor ugu kacdo. Binance soo kale waa identity kuwa oo DEX-ka ama decentralized exchange-ga waxa ugu weyn Uniswap mid aan leeyahay kale oo Ethereum ku base gareysan. Taasaa ugu weyn. Kuwa kalena way jiraan oo PancakeSwap mid aan leeyahay kale oo BNB-ga. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan marka suuqan soo galaysid oo trading-ga sameeyayso waa inaad market order-kaas fahantid. Waa inaad limit order-ka fahantid. Waxyaabaha ay ka qaadanayaan lacagaha ay ka qaadanayaan lacagta ku base gareysan qaar Bitcoin ku base gareysan qaar USDT ku base gareysan qaar lacag caadi ah ku base gareysan marka waxaas dhan ay fahantid waaye. Liquidity-ga yani suuqa inta coin-ka aragtinaga inta xabo ku jirto qiimaheeda in waxaas dhan fahansan tahay ayaa aad muhiim u ah.
marka waxyaabaha faa'iido ay leedahay inaa isticmaashid exchange-gaas waa inaa yani wixii aa u baahantay inaa heli kartid ama decentralize ha noqdo ama centralize yani kiribtada aa u baahantay inaa heli kartid midda centralize-ka badanaa kiribto walba kuma jirto because of the Binance oo kale waxaa laga yaabaa waxa 50,000 oo xabo kiribtaa adduunka ku jirta inaysan ku jirin oo 2,000 ama 1,500 inay ku jirtaa laga yaabaa halka laakiin decentralize-ka qof kasta oo token sameeyay wuu soo geli karaa isla markii marka decentralize-ka kiribtooyinka cusub oo dhan decentralize-ka la soo geliyaa Pepe oo kale decentralize la soo geliyay marka hore Shiba oo kale waa la soo geliyay qof Shiba $50 ku gato kala waxaa markii Binance la soo keenay ay timid 20 milyan ama 5 milyan oo dollar ay timid jirto marka decentralize-ka waxa waaye kuwa cusub oo dhan ku jira marka riskiga ay leeyihiin marka la isticmaalayo central exchange oo kale waa in la hakin garay karo lacagtaada la hakin garay karo inay lacagtaada ka xayiri karaan for example waxaa la hakin gareeyay Mt. Gox 2014 oo lacaga badan ay ku dhuntay waxaa kaloo jira inaad control adiga lahayn central exchange ku ah inaad adiga controlling lacagti oo ayagu ku hayaan oo anytime ay maaragtay ka joogi karaan marka badanaa erey waxaa jira la isticmaalo la yiraahdo not your keys not your coins yani haddaad adiga private keyga adiga aadan haysanin walletka ay ku jirto lacagta adiga ma lihid saas oo kale leeyahay maadaama laga celin karo marka exchange-yaasha waxaa macquul ah xataa in oo centralize-ka in weerar lagu qaado dowladaha inay weerar ku qaadaan ay xiraan Binance oo kale hadda dowladda Mareykanka oo kale waxay ku ganaaxay ku soo rogtay way xiri kartay hal maalin ay website-ka albaabada isku xiri kartaa dowladda haday rabto marka taas oo kale ciladaas oo kale way jirtaa waxaa lagu ganaaxay lacag dhan 5 bilyan oo dollar ka badan inay dhiibaan marka ciladahaas oo kale ay leedahay centralized exchange marka waxaa kusoo gabagabeynaa central exchange-ga waa waxyaabaha ugu muhiimsan cryptocurrency marka la joogo waa meesha wax looga gato oo qofku wuxuu rabo ka gadan karo wuxuu rabo uu ku iibin karo kiribtada aad gadato kale hadii faa'iido ku noqoto meesha aad ku iibin lahayd ay noqonayso labadaas nooc ay kala yihiin oo centralized exchange-ga oo CEX clear loo yaqaano ama decentralized exchange oo DEX loo yaqaano labadaas nooc ay kala baxaan mid walbana faa'iido iyo khasaaraba ay leedahay marka taas ku soo gabagabeynaya waxa la wixii su'aalaha iyo commenting noogu dhaaf insha Allah taala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh